toddobadii subaxnimo ee saaka ay ahayd markii gudaha dekedda magaalada Boosaaso gaar ahaan afaafka hore ee suuqa kalluunka ee Negfish oo nin ku hubeysan baastoolad dhaawac ugu geystay Paul Anthony waxa maariyihii dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda DP World gacanta ku haysa dekedda Mr. Paul oo dhaawac ahaan looga qaaday goobta ayaa markii dambe u geeriyooday dhaawac daran oo soo gaaray waxaana ninka beegsaday isla goobta ku dhaawacay mid ka mid ah ciidamada ilaalada dekedda sida laamaha ammaanku ay xaqiijiyeen iyadoo dhaawaciisa la geeyay isbitaalka weyn ee magaalada مسؤولينta laamaha ammaanka ee gobolka Bari ayaa dilka maamulaha dekedda Boosaaso kadib waxay qabteen shir jiraa'id oo ay uga hadlayaan dhacdada lagu dilay Paul Anthony Farmosa ugu horeyn taliyaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa faahfaahin ka bixiyay sida uu dhacay weerarka lagu dilay Paul maamulihii dekedda taliyaha oo faahfaahin ka bixinaya weerarka waxa uu sheegay in jiraan dhaawacyo soo gaaray laba askari oo ka tirsan ciidamada ilaalada dekedda marka laga reebo ninkii weerarka soo qaaday oo isna dhaawaca arinta saaka 7:15 daqiiqo markay ahayd ayaa maareeyaha dekedda iyo tiimka la shaqeynaya iyo ciidanka ilaalada u ahaa halka ay degan yihiin oo dekedda xaydaanka loo yaqaano aan dabiic ahaan aan ku dhex jirin laakiin banaanka ka ah oo qaybta Negfish ay u dhaxayso dekedda iyo deegaanka ay degan yihiin waxay ka soo bixeen halka ay deganaayeen sida caadiga marka ay ka yimaadaan deegaankooda waxay soo dhex maraan qaybta Negfish oo kalluumaysatada kadibna halkaas ay dekedda iyo xafiisyadooda ka gali jireen markii ay marayeen saacadu markay 7:15 daqiiqo ahayd halka Negfish dhexdeeda ah ayaa halkaay maqaaxid yar oo ku taala nin yar oo dhalinyaro ah oo fadhiyay oo bastoolad u qarsoonayd ayaa ciidankii iyo maareeyaha iyo tiimkiisii si degdeg ah u soo dhexgalay ka bacdina wuxuu furay rasaastii bastoolada ugu jirtay halkaas waxa xabadihii ku dhacay ku geeriyooday maareeyihii dekedda ee u joogay kambaniga B&O Mr. Paul waxa kale oo dhaawacmay laba askari oo nin dhaawaciisa uu culus yahay oo ahaa labada dhinac ka marayay waxa kale oo xabadii halkaas iyadana ay dhaawac kale u gaarsiisay nin kale oo Hindiya oo shaqaalaha kambaniga kamid ahaa oo lagu dabiibayo hadda isbitaalka National arinta dhacday saaka intaasay ahayd dhankiisa gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Wacays Dhado oo warfidiyeenka la hadlay waxa uu sheegay in baaritaano lagu hayo dhacdada lagu dilay maamulaha dekedda Boosaaso waxaana uu sheegay in ciidamada ay ku guuleysteen soo qabashada ninkii ka dambeeyay dilkii loo geystay maariyihii dekedda Paul Anthony Farmosa inta ka bacdi ciidankii waxay ku guuleysteen inay ninka shabaabka ee muslimka ay dhaawacaan haddana waxa lagu hayaa cusbitalka dhexe ee magaalada Boosood isagina amaliyad baa ku socota waxa guul ah in la qabto cidii falka ka dameysay iyo cidii isaga kula socotay intaba waa la baarayaa isaga waanu haynaa wixii kale aan tuhun ama aan isleenahay related bay lahayn ama falka way ku jireena ilaahay idankii gacanta la soo dhigayaa waxa intii aan xogtii ururinaynay waxaan dadka ka maqlaynay kuwa le waa kalluumaysato kuwa kale niba wuxuu rabo ku sheegay kalluumaysato dekedda iyo agaarkeeda waxba kama fulin ma aha kalluumaysato waa nin al-shabaab ah isagana gacanta lagu hayaa xilligii aanu dabiibno oo aanu muuqaalkiisa horkeeni karo midiyahana waa horkeenaynaa dadweynaha mar kale waxaan ugu celinaynaa inayan ahayn qof kalluumaysato ah oo aaga ay marayeen ba waxa degan kalluumaysato qolo dadka qaybtina waxay leeyihiin dekedda gudaheedii marka dekedina ma aha wasaaradda dekedaha ee cusub iyo Negfish bay dhismahoodu ay degaankoodu yahay Negfish bayna sii maraan markay rabaan inay dekedda galaan iyagoo Negfish maraya ayaa falkaas u dhacay waxa guul ah in aan cidii geysatay falka aanu gacanta ku hayno si kastaba Paul Anthony Farmosa ayaa dekedda magaalada Boosaaso waxa uu maamulo ka ahaa tan iyo sanadii 2017 markaas xukuumadii uu hogaami jiray Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay heshiis 30 sano la gashay shirkadda DP World ee maamulaysa dekedda magaalada Boosaaso Cabdirsaaq Cabdallah Goobjoog TV Boosaaso